soo dhawaada sheekadeenii Maana-faay xalqadeedii sagaalaad. sheekada waxay noo marisay iyadoo jaamac uu cambaro ka ilbuuxsaday oo jirkeeda dhammaanteed arkayay oo uu arkay sida qaabdarada ah ee uu ceyshay iyo sida uu isu bedeshay. wuxuu milixsaday dhabanadeedii uu arki jiray iyagoo dhalaalaya. cimriyo biiwa waa kuwaas duuduubka yeeshay xiribihii cukanaan jiray, waa kuwaas harwashka dhigay camankii cudoonaan jiray, isagoo il naxariis leh ku eegaya ee sidii qof uu beri aqoon jiray. sanooyinkanse arag kor iyo hoosba ka jeedaalinaya ayaa wax ku soo dhaceen. markaasuu isu qoslay, haddana intuu isqabtay buu wejigeedii isha qac ku siiyey. wuxuu ka baqay in ay qosalkiisa dareentay, ma jeclayn in ay ku soo jeesato. markuu hubsaday in ay hawsheeda ku maqan tahay ayuu kursigii dib ugu dhacadiidsaday. masaakiin cambaro, allow cuqubadeeda iga du. talow maxay fali lahayd hadday og tahay waxa aan caawa samayn doono aniga iyo Cawaale? maxay oran lahayd hadday saaka taleefankii Cawaale dhankeeda ka qabsato ee maqlayso markii uu lahaa caawa fadhigu waa aniga? hadday dhegta u dhigayso markii uu kala shaandhaynayay liiska naagaha guryahooda lagu qayilayo ee uu igala tashanayay tii loo xilsaari lahaa barnaamijka caawa. cambaroy, allow ha ku cadaabin. Cawaale marka uu hadhow u yimaado, farxad iyo qalbi furfurnaan baad ku soo dhoweyn doontaa. sidaadii waad u qoslaysaa, isaguna kuu soo qoslayaa, kula kaftamayaa, isaga oo isaga kaa dhigaya gacalkaa sama jecle ah. afow yeelkaa uurow allaa ku og. kala fogaa qosalkaaga iyo kiisu. aniga waad iga shaki qabtaa, isagase kama shaki qabtid. aniga maqnaantayda iyo soo daahidayda uunbaad aragtay, iyo xanta dumarka qaarkood kuu keenaan. laakiinse ma ogid macallinka jidkaas cusub ii horseeday inuu yahay Cawaale iyo saaxiibadiisa kale ee lacagta leh. adiguna hantidooda iyo magacdheeridooda awgeed markaad aragtaba xushmad weyn baa ku soo dhawaysaa, kuna faantaa in ay ninkaaga saaxiib la yihiin akhyaartaas haybadda leh. laakiinse waxba ma aha cambaroy. maxaa ka micno ah? Cawaale waxba ma bi'in, wanaagna kulama necba. marka uu meelaha qaarkood i geynayo, waxyaalaha qaarkoodna ii horseedayo, kama aha cambaro ku xadgudub. waxay ka tahay saaxiibka jaamac raali geli, ka farxi, isna markiisa ha kaa farxiyo. waxaad uga baahatana ha kuu fuliyo. aniga qudhaydu ma jecli in aan xuquuqdaada ku xadgudbo. waxaan kaa bi'iyey ma jiraan. waxba iskama bedelin gacaladii aan kuu qabay iyo qiimihii aad igu fadhiday. ha ka cabsan in aan ku idhaahdo cambar gabowdaya iska fur oo gabar yar kusoo bedelo. markaas ma waxbaan dhimay intii aan sidaas yeeli lahaa haddaan habeen gabdhaha yaryar isaga foolbaxsado? maya. wax aan kuu dhimay ma jiraan. cawdi bilayso saaxiib. qayrkii dhowr naagood bay qabaan, haddana ku qaraaf tagaan. caqli haddaad leedahay fasax sharci ah baad isiin lahayd. foolbaxsiga iguma kalafteen suuq madow. dembiga kale uunbaad ii darane, adigu waxba iguma sheegan kartid. dembiga aakhiro allaha naga dhaafo. allow noo dembi dhaaf. ilaahow tooba. markii fikirkaas halkaas marayay buu madaxa hoos u rogtay, wejigiina isbedelay. wuxuu xasuustay in uu joogo waqtigii uu casarka tukan jiray. waxaa maskaxdiisa isku herdiyey xasuustii salaada ee maskaxda kusoo dhacday iyo tii macsida ee hore ugu jirtay. waxa uu is yidhi, sidee salaad kuugu ansaxaysaa adigoo weli niyadda ku haysta dembiga weyn ee caawa aad ku kici doonto? sidee ugu bereeri kartaa in ilaahay aad is hortaagtid ee naftaada iyo carruurtaadaba khayr uga baridid, adigoo ku tala jira in aad caawa amarkiisa jebisid? ma been baad u sheegi kartaa sida aad cambaro beenta ugu sheegi doontid ee marka aad baxayso u oran doontid caawa shir dheer baa layga wacay, waana ku soo daahi doonaa? maya, iska dhaaf salaadaas. ha isku lugoyn, laga aqbali maayee. iska raaxayso, nafta ha cadaabine. ka faa'iidayso waqtiga ku soo maray. laakiin taasi sow aakhiro waa maaha. ma adigoo maanta da'daasa baad fiqi u go'doomaysaa ee cimrigaaga dhammaaday ceeb ugu sagootinaysaa ee adduun iyo aakhiraba iskugu ceebeynaysaa? aaway magacaagii iyo haybadaadii lagugu qadarin jiray? alla ilahe waa baaday. kala fogaa sida dadku kuu qabo iyo sida aad tahay. allow tooba. biiwa barnaamijka caawa. Cawaale iyo barnaamijkiisuba badda ha galeen
oo caawa haddaad baabi'isid ma ku sii wadaysaa? haa, maya. go'aankaasi waa kii aad hore u fulin kari weyday. waa laba daran mid dooro: islaantan cimriga ah, agfadhigeeda, ama hablaha curdanka ah iyo cadaab aakhiro, raaxa la'aan ama aakhiro la'aan. maxaan yeelaa? ma ogi. bes. waa tooba keenaya cawaale iyo barnaamijkiisa bul allaha ka siiyo. bekeeriga shaaha ahaa bar isla hadalkii ku ilaaway ayuu intuu hal mar qab ka siiyey xabad sigaar ah la soo baxay. dhididkiina cawdu ka qalajisay ayaa korkiisa dib u qooyay. shukumaankiibuu isku tirtiray. indhoweydba isla hadalkaasi cudur buu ku ahaa. waxa uu noqday laba nin oo muuqaalka mid qura ka ah, muran joogto ahina ka dhex taagan yahay. waa mid nolosha cusub ee sanadahan dambe bilaabay ku farabaxsanaya iyo mid uga digayaan. inkastoo da'diisu 60 sano sii habanayso, haddana waxaad moodaa inuu intaas aad uga da'yar yahay. wuxuu dareemayaa firfircooni iyo xoog dhalinyarnimo oo la yaab leh. dareenkaasi waxau kusii kordhay sanooyinkii dambe intii uu ladnaanta isbiday. noloshiisii hore dhibaatooyin fara badan buu soo maray. 20kii sano ee dunida ugu horreysay, laba mooye intii kale miyi buu kusoo dhammaystay. wuxuu ahaan jiray geeljire kibir badan oo aflagaadada iyo dagaalka ka soo horeeyo cidna kama haybeedaysan jirin. wiilasha ficiisa ah ee ay geela isla lahaayeen way ka cabsan jireen. kuwa ka yaryarna amar kulul buu siin jiray. hadday ka diidaanna waa garaaci jiray. mid sidaas ugu ciil qabay ayaa habeen isagoo golaha jiifa ee geela cawaysinka laga sugayo waxa uu damcay inuu faas madaxa ku kala jeexo. mid arkayay baa intuu soo orday ka balfiyey. markaasuu faaskii oo dalanbaabi ahi dhegta uga dhacay ee dacal uga gooyey, hoostana ka daqray. sidaas ayaa loogu bixiyey magacan ah jaamac dhegay. noloshii miyigu markay adkaatay ayuu magaalo u soo qaxay isagoo 18 jir ah. waxa uu soo maray nolol iskorisnimo ah oo aad u qalafsan: darbi seexad, jaliska tuur, xamaal iyo wax la mid ah. kadib ganacsi iyo shaqo dowladeed buu midba mar isku dayi jiray. inta badanse waxau ahaa shaqaale dowladeed, inkastoo weliga niyadda ka jeclaa in uu baayic mushtar noqdo ee shaqaalanimada uga baxo. dhowr sano ka hor ayuu gaaray inuu agaasimo guud ka noqdo mashruucii uu ka shaqaynayay. waa muddadaas inta uu bilaabay noloshan cusub. sida dhaqaalihiisu isu bedelay ayuu dhaqankiisuna isu bedelay. isbedelka xagga dhaqanka ah waxaa u horkacay saaxiibo nooc cusub ah oo uu muddadaas yeeshay, danahooduna isku xirmeen. dhallinyarnimadiisii reero tumasho ma ahayn, awooddiisana umaba ogolayn. intii uu xaaska noqdayna wuxuu halgan ugu jiray sidii uu carruurtiisa u korsan lahaa. hadda unbay carruurtii koreen, qaarkood ka feer shaqeeyeen, dhaqaalihiisuna ka batay baahidii nolol maalmeedka qoyska. markaasay ku furantay dariishadan cusubi. muddo aan 3 xilbiriqsi dhammayn ayay jaamac dhegay kusoo dhacday taariikhdiisa dheer iyo isbedelkaas lama filaanka ah. markaasuu intuu korsigii jiifka dib ugu dhacaadiisaday ee sidii nin orod ka soo xiiqay u neeftuuray, waxa uu yidhi kulayl baa lala joogi kari la'yahay. sidii isaga oo oraadaas micnaha leh uga baxsanaya culayskii isla hadalku ku hayay. cambaro weli darinteeda ayay ku fadhidaa, hawsheediina way ku foogan tahay. ayaa ka daba tidhi sidii iyadoo hadalka uu bilaabay ku dhiirigelinaysa. kulaylna ka daran, qiyaamihii baa laisku soo kiciyey. waxaan maqli jiray aakhiru sabanka qoraxdu meel dhow baa la keenayaa. waan hubaa in ay intii hore ka dhowdahay. allow noo amuur sahal. axmed xaajigii guriga moo soo nashqadaysay? maya aabe, maantana waqti baan u waayey. injineer axmed oo isagu macaws kaliya qabaa jikada shaaha ka soo shubtay baa sidaas aabihii ugu jawaabay. maalintaas qadadii kadib gurigiisa gaarka ahaa uma hurdo tegine wuu iska harsaday. kii ka yaraa oo maqan buu sariirtiisii iska seexday. marka uu gurigooda joogo waxa uu ka xoroobaa isdhowridda iyo isbuunbuuninta culayska ku ah marka uu meelaha kala joogo. sidii isaga oo weli carruur ah ayuu kujada, suuliga, qolka jiifka, kuwa fadhiga iyo meeshii uu doonaba u galaa. isagoo bekeerigii shaaha jikada uga soo shubtay gacanta ku sita ayuu aabihii iyo hooyadii dhexdooda gambar soo dhigtay si uu odayga su-aashiisa ugu qanciyo. sahre yuusuf oo booqashadeedu ay galab kasta waqtigaas oo kale imaan jirtay ayaa timi. intay abtigeed salaantay bay cambaro darintii kula dul fadhiisatay. waan ku tala jiray in aan maanta u tago,
Axmed baa xog warankii ka sii watay, laakiin shaqooyin badan baa igu furmay ilaa aan ka arkay saacaddii oo dhammaatay. Berri baanse soo nashqadayn doonaa. Maxaa beenta kugu khasbaya? Wixii aanad qabanayn maad si caddaan ah u tiraahdi ma qabanayo, micid baa khasab kugu leh. Maalin walba berri baan u tegi doonaa. Been igama ahee, shaqada iga badatay aabe. Shaqada iga badatay ayuu aabihii ugu jawaabay. Shaqo aadan wax faa'iido ka keenayn baad nafta isaga qaadaysaa. Tii faa'iidada noogu jirtana waxaad leedahay waqti baan u waayay, garan maayo goorta aad caqliyeysan doonto ee dantaada aad garan doonto. Garaad mooye ku dhimani ma jiro. Axmed caado uma ahayn inuu aabihii la doodo ama hadal ku celceliyo. Markuu yaraa intuu ardayga ahaaba kuma dhici jirin inuu erey ka daba yiraahdo, xitaa haddii uu yiraahdo badda ku dhac. Waxa uu iska dhigi jiray wax amarkiisa qaatay, marka dambe ha fuliyo ama yuusan fuline. Laakiinse intii uu dibadda ka soo noqday ee shaqada bilaabay, odayguna canaantii kululayd iyo caydii waa ka daayay. Sidii nin weyn ayuu u qadariyaa. Isaguna waxa uu bilaabay inuu aabihii la sheekaysto, welibana mararka qaarkood isku dayo inuu wax isaga si ugu muuqda si kale u tuso. Laakiinse inta badan kuma guuleysan jirin. Waxay kala taagnaayeen laba gees oo aan isu iman karin. Odaygu inkastoo magaalo ku ilmo dhalay, muddo badanna ku noolaa, oo ku dadaalay inuu wax isbaro, afaf qalaadna wax ka yaqaan, haddana maskaxdiisu weli waa tii miyiga. Caruurtiisa waxyaabaha ay ku fikiraan iyo siyaalaha ay la dhaqmaan aad buu la yaabaa. Markuu wax kasta isku dayo ee dhaqankooda bedeli kari waayo, ayuu intuu dhafoorka qabsado hoos ka yiraahdaa, waa adduunye gadoon, waa dhal aakhiru saban. Axmed qudhiisu waa og yahay inuusan aabihii maskaxdiisa bedeli karin, waxna ka dhaadhicin karin. Hase yeeshee arrintan uu galabta ku canaananayo horay buu uga badbaadiyey. Isaguna madaxuu u ruxi jiray isagoo ka cararaya inuu aabihii la doodo. Laakiin galabtaas bal isku day in aad aabe ra'yigaaga u caddaysid, wuxuu doonaba ha ku yiraahdee, ayuu iskula hadlay. Markaasuu yidhi isagoo hoos u fiirinaya, laakiin aabe, intaan shaqadii qaranka ee xilkeeda isaarnaa oo dayacan ka tago, miyaa nin gurigii u soo nashqadayn karaa? Intuu si kadisa u eega ee indhaha galka uga bixiyey buu yidhi, waan ku arkayay inaad awalba annaga imaaweelinaysay ee ayna kaa hor caddayn in aad ninkaas odayga ah gacan siisid. Shaqada qaranka waa kaas caqligiisu. Intuu codkii kor u sii dalacay buu yidhi, maxaad faa'iido ka keentay shaqada qaranka? 1 sano iyo dheeraad baa kusii ordaysaaye. Mushaharkan xun oo aan xataa adiga cuntadaada ku filnayn miyaad nafta isaga qaadaysaa? Caawa wixii aan kusii tiir iyo tacab beelay, maantaan kaa lahay nin saaxiibkay ahoo aanan aniguba danaheeda uga maarmi karin, gacan sii. Aabe, xaajiga gacansiintiisa ma diidani, laakiin waa markaan waajibkayga guto kadib. Mushaharka xagee layga badinayaa? Haddii aan dayaco shaqadii miraheeda lacagtu ka dhalan lahayd. Dal aan shaqo adag laga qaban ee lacag laga soo saaray miyay suurtoobaysaa in keligay mushahar badan layga siiyo? Haddii sida dalalka horu maray awowyaashayo horay hawsha adag uguna furi lahaayeen, maanta annaga ayaa raaxaysan kari lahayn. Sida ayuu ugu jawaabay Axmed aabihii. Halkaasaynu sheekada ku joojin doonaa tan iyo xalqada xigta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.